warbixintan waxaan uga hadli doonaa gabadhan oo lagu magacaabo Ayuuni Qurux oo aan ka abraha bulshada qaybadeeda kala duwan oo shalito ay Facebook ka qaadatay kadib markii kooxaha dadka ceebeeyo oo raadiya ceebaha dadka isla markaasna caadaystay in ceebaha dadka ay dabagal aad u dheer ku sameeyaan farxadna ay u arkaan inay soo bandhigaan ay ku sheegeen video inay ayada soo duubtay oo ay ku soo gudbiyeen isla markaasna shalito halkaas lagu falqeynayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheegaynaa in ceebta ay tahay qofka walaalka ceebtiisa aad qariso in Allah uu qarinayo in kumanaan ka mid ah ceebahaaga nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka digay dadka in ceebahooda la barbaaro oo la daba kaco isla markaasna aad loo raadiyo shakhsi walba oo dunida ku nool waxa uu leeyahay ceebo u gooni ah oo ma jiro ruux dhameystiran hayeeshee Soomaalida ayaa dad aad u raadiya buubuuniya waxaan jirin ka sheegay qofka ayagoona caado ka dhigtay inay halkaasi ku soo gudbiyaan baraha bulshada qofka sawiradiisa iyo sawiro kale iyo muuqaalo ay ku sheegayaan qaarna ay yihiin gacan ku sameys been ah oo la soo dhoobay dad badan oo mas'uuliyiin ah rag iyo dumar intaba qaar caan ah ay u gafeen qaaran caan ahayn intaba waxay ku sheegaan waxyaalo kala duwan qaladii aysan galin ay dusha ka saaraan walow ay jirta xataa hadii qofka ay wax gafa ka dhacaan Allah ayuu rabaa cafis inuu weydiisto ee ma ahan dadka wax cafiska la weydiisanaya waxaana haboon in walaalka ceebtiisa marnaba aadan faafin aadna ku farxin oo aad ku diganin oo aad bulshada qaybaheeda kala duwan waxaad arkaysaa dad badan oo Facebook ku buubuuninaya sawirada caynka ah iyo waxyaalaha aad ka uleeyta ee ay ka hadlayaan qaarkood oo dhanka YouTube ka hadlaya ayagana ka faa'iideysanaya oo doonaya inay magac iyo waxyaalo kale ka sii helaan waxay falanqeynayaan ayagoona isla videogii oo caynka ah soo qaadanaya hayeeshee hadii ay sawirka kale soo qaataan sawirkeedii hore xataa waxay ahaan lahayd sida haatan warbixinta ku xusun oo kaleeto wax macquul ah laakiin waxay soo qaadanayaan sawir maahan waa isla videogii lagu sheegay inay ayada tahay ayay ku faafinayaan waxay iska dhigayaan dadka hadlaaya oo arintaasi falaqeyn kooban ku sameynaya maahan inaad falaqeyn ku sameyso hadii aad ka hadlaysaneen waa in wanaaga ummadda aad ugu yeerto mana haboon in aad ku tilmaanto waxyaalo aan jirin waxa laga doonayaa markaad aragto xaalad inaadan si degdeg ah ugu falcelin ilaa haatan comment kama bixin xaqiiqatan sababtoo ah waxan wax la hubo ma ahan run ahaantii Soomaalidana waxay noqotay dabeecad soo jireen ah oo ah dadka ceebahooda inay raadiyaan dadka qaar ayaa ku soo qora baraha bulshada qaasatan YouTube-ka fanaan amise waxyaalo kale ama qof iska caan ah hebel oo aan ka helnay sir iyo fadeexa aad weyn kolka ay sida ku soo xardaan ciwaankooda koowaad waxa arkaysaa dad badan oo ka hadlaya isla markaasna soo galaya YouTube-kii ama channel-kii lagu soo bandhigay ereyada aynka ah waxay noqonaysaa meel ay dadka buux dhaafiyaan oo views aad u sareeyo oo ka helo danta guud ee ku xeedaaman ayaa ah inuu helo views-kaasi kaliya ayuu doonayaa ma ahan sharaf sir iyo beenta uu sheegay waxyaalo asiga ku xiran oo waxa uu yahayba ruux u soo meel dayay oo u soo ababaxayba inuu beentaasi kaliya sheego wuxuuna ogaaday Soomaalida inay yihiin kuwa aad u jecel beenta iyo waxyaalaha la sheegayo dadka beentaasi faafinaya hadii aysan heli lahayn comment badan iyo like iyo waxyaalo la mid ah oo dadweynaha ay buubuunin lahayn way ka xajisi lahaayeen raantii weyn iska day laayeen waxyaalaha ay sameynayaan laakiin waxa uu sababa Soomaalida badana ka buuxsamayo oo fariimo u soo diray isla markaasna ku sheegay in ay ka naxayaan oo kale ay comment ka bixinayaan iyo warar aad u tiro badan kuwaasi ayaa sabab ah ayaa la isdhihi karaa dadkan waxayna u tahay dhiirigelin inay xumaanta sii faafiyaan maadaama uu kala kacaya boostiyada ay ku soo boosti gareeyaan Facebook ujeedkooda guudna uu ahaa in halkaasi ay ku soo gudbiyaan oo uu noqdo mid bulshada ay falaqeyn ku sameyso intaasi ay ujeedkeedu guud ku saabsan yahay guud ahaan waxa leenahay annaka hadii aan channel-ka Do Axmedi qaasatan islaaniga aad ayaan ugu xunaanay waana ka xunaanay waxa ku dhacay iyo waxa wax magaratada ah aan dadka ahayn waxyaalaha ay geysanayaan oo ah dad Soomaaliyeed oo anaga oo kale taa hayeeshee dadkaasi ma ahan kuwa dhowraya sharafta qofka waxa ka weyn sharafta qofku aad u gafto ma lahan erayga qofka waa wax aad u muhiim ah oo aan mar laba la heli karin waxaan ku dardaarmayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan hadii ay jirto ragga qaar inaysan waxba la wadaagin oo ay ka digtoonaadaan maxaa yeelay waad arki kartaa waxyaalaha badana ay sameeyaan oo ay faafiyaan inay tahay gabdhaha Soomaaliyeed ayagoona aan ka naxaynin mustaqbalkooda iyo aayahooda damba ayagana ay fiirinayaan kaliya
waxa aad u liito waa comment iyo waxyaalo lamid ah intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waad mahadsan